الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. waxaan maraynay xadiidkii muxuu ahaa 31 waa xadiidkii cabdullaahi ibnu cumar radia allaahu canhuma wa ardaah. wuxuu ka wariyey aabbihiisa cumar bn khadaab qaala inuu yidhi: yaa rasuula allah, rasuul allow, ayarqudu axadunaa midkeenna ma seexanaya oo ma u bannaan tahay inuu seexdo wahuwa junubun asagoo janaabo qabo janaabada noocay ku imaatayba macnaa asagoo mino qabo weeyaan, ma seexan karaa? qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam: nacam, haa, wuu seexan karaa. goormaa? idaa tawada'a axadukum midkiina hadduu weysaysto falyarqud ha iska seexdo wahuwa junubun asagoo janaabo qabo. xadiidka markaa wuxuu tilmaamayaa nabiga in la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam midkeena ee asagoo macnaha janaabo qabo oo mino ka yimaatay ama galmoodha ooga yimaato ama manaamaad iyo hurdaha ooga yimaato ama si kale ha ooga yimaatay ma seexan karaa asagoo janaabo qabo? nabiga calayhi salaatu wasalaam haa buu yidhi, haddii dahaarada muxuu ahaaye xadadka uu iskaga fududeeyo muxuu ahaaye weyse markaa noocay ku imaatoba inuu markaa saa u seexan karo ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayuu sheegay. su-aasha markaa waxay u weydiinayeenna waxaa ahaaye janaabada agtooda ka weyneed, waxaa ka ishkaal galay inuu qofka seexan karo iyo inuusan seexani karin arrinta iyide. marka xadiidka wuxuu tilmaamayaa waxa la yidhaahdo jawaazu nawmu ljunubi qabla alqusli idaa tawada'a. qofka inay u bannaan tahay inuu seexdo asoo janaabo qabo asoon weli qabaysanin hadduu weysaysto waayo. waxaa kaloo xadiidka uu ku tusinayaa yacni dahaaro kaamil ah waxba looma baahno. dahaarada hadduu markaa xadadka iskaba fududeeyo, weyse iskaga fududeeyo, muxuu ahaaye waa sida fiican waa inuu qabaysto u dahaaro qaato, waa sida fiican. laakiin haddii la waayo inuu weysaysto, taasiya markaa weysada iyada waxay u bannaanaynaysaa hurdadii iyo xadadkii inuu kusii joogo ayay u bannaanaynaysaa. waa ruksa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka ahaatay. xadiidku waxaa kaloon ka qaadanaynaa wax la yidhaahdo mashruuciyat alwuduu qabla nawmi liljunub idaa lam yaktasil. waa un macnihii aan tilmaamayna wax lamida un waaye. iyo inay karaaha ku sugan tahay inuu qofkii seexdo asagoon qabaysanin ama aanan weysaysanin. karaahadaas markaa karaahatu taxriimna way noqon kartaa, karaahatu tansiihina way noqon kartaa, labada way ixtimaali kartaa. laakiin xadiidka wuxuu noo tilmaamay waxaa waaye inaanan la seexanaynin oo qofka inuu weysaysto oo weysada markaa qabayskii baa looga fududaynayaa. weysada iyada ah qabayskii bay fududaynaysaa oo rukso bay u noqonaysaa marka. الحديث 32 عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وحيت راد أم سلمة: جاءت وحاتمد أم سليم
Sulaym ayaa imaatay magacaas oo kunyadaas ay macruuf ku tahay imraatu Abi Talha zawjadiisa ayay ahayd ilaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam nabiga ayay u imaatay faqaala waxay tiraahday yaa rasuulallah rasuul allow inna allaha laa yastaxyi min alxaqi ilaahay xaqa kama xishoodo oo shayga shay diini oo xaqa hadduuba yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kama xishoodee fahal cala almar'ati haweenayda dusheeda ma ahaatay min guslin qabees idaa hiya ixtalamat hadday isku jinaabto oo jinaabada ka yimaado oo macnaha waxaa weye minidii hadday soo dhaafto oo mini ka yimaado macnaha dusheeda qabees miyaa lagu leeyahay sidii macnaha waxaa waye ragga loogu leeyahay oo kale faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhahdee nacam haa laakiinse goorma idaa hiya ra'at ilmaa biyo hadday aragto biyo hadday ka yimaadaan marar qaara waxaa dhici kartaa qofki inuu riyoodo ama uu moodo inuu wax ka yimaade waxbana uusan ka yimaadin oo shaydaanka u waswaasiyo taasaa markaa iyada la diidayaa haddii mar qofka muxuu ahaay rag iyo dumarba wuxuu ahaado qof hadduu mar arko inay muxuu ahaay biyo yimaadeen oo biyo raadkooda uu meesha ku arko waxaa waaye markaa iyada waa inuu qabaysto oo qabays ayaa dusheeda ahaaday buu yidhahday nabiga calayhi salaatu wasalaam وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وحيتري جاءت أم سليم يا امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إمات فقال وحيتري يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق إلهي حق كما حشوض فهل على المرأة من غسل هوين إذا قويس لقمليه إذا هي احتلمت هداي muxuu ahaaye ixtilaamto alalad iyo wax ku dhaco macnaha waxaa waaye oo ay u aragto iyadoo muxuu ahaaye nin la mucaamaloonayso waay iyo wax saas oo markaa sidaa biyo ku yimaadaan muxuu ahaaye qabays dusheeda ma ahaade waay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi nacam haa idaa hiya ra'at ilmaa biyo hadday aragto qabays ayaa laga rabaa sidaas ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhaahday marka Umu Sulaym waa dumarkii ansaariyaadka ee ka mid ahayd nabigana calayhi salaatu wasalaam qaraabanimo ayaa ka dhexaysay waxay samaysay markaa waxyaalo inta badan laga yaabo macna ay u badan yihiin dumarka inay ka xishoodaan inay ragga weydiiyaan ayay markaa weydiinaysaa su-aashaas markaa waxay u samaysay gogol dhig oo waxay tiraahday ilaahay xaqa kama xishoodo waana sax wey masalada diineed haddii mar ay meel kaa gasho oo masale xugun uu ku tacalluqo adina ileen xukunkaas addoonaad ku tahay marka masaladaas xishood looga maharaaye masalada meesha ay gasho waad la gelaysaa markaas waxay tiraahday haweenayda dusheeda laguma leeyahay qabays haddii sidaas muxuu ahaaye ooga yimaado wax ooga imaado nabigeenana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday haa sidaas oo kale waaye mar hadday biyaba aragto oo minidii oo imaatay ay aragto qabays ayaa muxuu ahaay lagu leeyahay waay waxaa dhici kartaa mar inuu qofkii macnaha waxaa waaye waxyaalo u maleeyo waxbana xaqiiqana ayna ahayn oo shaydaanka uu ku ciyaaro arrinta haddayna sidaa ahayn oo marba ama riyo ama xaqiiqanimo ay ku yimaato ama soo jeed ama hurdo xaqiiqada waxaa lagu garanayaa inay muxuu ahaay wax soo baxay raadkii baa kuu muuqanaya marba raadkii hadday aragto wuxuu yidhaahday waxaa ahaaday dusheeda qabays ayaa laga rabaa buu yidhaahday xadiidka marka waxyaalihii aan ka qaadanayna waxaa ka mid ah qofka dumarka ah qabays in lagu leeyahay sidii ragga loogu leeyahay mar haddii biyo yimaadaan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa dumarkana inay minidii iyo biyihii ay leeyihiin sidii ragga uu u leeyahay oo kale laakiin noociyadii baa kala bedelan noociyadoodii ayaa kala bedelan oo kuwa ragga macnaha cadiinka oo adag noocaas way ka bedelan yihiin biyo muxuu ahaay boor oo macnaha waxaa waaye nugul oo inta badanna muxuu ahaay saas oo kale aan iskii raggana usoo bixin ayay leeyihiin markaa oo nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii arrintaa ayna jirin shabah xaguu ka ahaan lahaa way inkireenoo waxay yidhi arrintaa amayna jirin waay markaa nabi wuxuu yidhi haddii arrintaa ayna jirin min ayna yakuunu shabah
ekaashada carruurta ekaanayiin hooyooyinka u ekaanayiin abtiyadooda u ekaanayiin reeraha iyo qoyskii ree awowga u ekaanayiin carruurta hadday arrintaa jirin intay ka ahaanaysaa wey sidaa aawadeed markaa shabaha carruurta oo xagga ree abtiga iyo ree awowga carruurta ay raacayaan waxay ka imaanahayaan muxuu ahaay biyaha dumarkaa labada biyo markay isku dhacaan ayaa biyo xoog badinayeen kuwa ayaa xoog badinayeen ama kuwii raggii baa xoog badinayeen ama kuwii dumarkaa xoog badinayaan haddaba kuwa xoog badiyaan ayay carruurta ekaanshaha raacayeen waa sidaas wey labada biyo markay isku dhacaan kuwa ayaa qaalib noqonayaan kuwa qaalib noqtaan ayaa markii muxuu ahaay carruurta ekaanshaha xaggaasay markaa iyada ka ahaanaysaa waxaa kaloo xadiidka ku sugan in la sugay oo gabadha ay sheegtay saxaabiyada radia allahu canha wa ardaaha sifa min sifaati illaahi subxaanahu wa tacaala oo ilaahay baa loo sugay sifa liya sifatu lxayaa waa sifo asaga yaqaano xishoodkeenoo kale ma aha waa sifo asaga u cunanto annagana waan sugaynaa yaliiqu bijalaalihi asagay u cunantaa annaga ma garanayno qaabkay tahay marka ilaahayna subxaanahu wa tacaala sifaadkaas sifooyinka qaarna waa salbi qaarna waa iijaabi waay qaar ilaahay subxaanahu wa tacaala waa loo diidayaa qaarna waa loo sugayaa sifooyinka sifo kastaa oo xumaan ku tusinayso ama naqsi ku tusinayso ama dacfi ku tusinayso ilaahay subxaanahu wa tacaala ma laha waay sifooyinkiisa dhammaan waa sifooyin xambaarsan kamaal iyo dhammaystir iyo muxuu ahaa sharaf iyo ammaan ayay xambaarsan yihiin waay sifaadkiisa waxaa ka mid ahaa oo qur-aanka lagu sheegay laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm ilaahay inuusan qabanaynin lulmood iyo hurdo midna ibnulqayim fi lbadaa'ic iyuu ku sheegay sidaa iyada ah oo macnaha sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala kudi dhammaan waxay ku tusinayeen kamaalu xayaatihi wa quyuumatihi qayuumnimadiisa iyo xayaatadiisa iyo awooddiisa ayay ku tusinayeen waay xadiidkana markaa way ku sugan tahay waxaa kaloo xadiidka markaa uu sugayaa xishoodka oo xayaha la yidhaahdo yacni ma diidaayo qofka inuu cilmiga barto uma diidaayo waxyaalaha kale amaa la diidaayaa laakiin xishoodka iyo iimaanka oo la yidhaha alxayaau min aliimaan oo iimaanka ka midka ah kuuma diidaayo masaa-isha diineed axkaamtii ku tacalluqtay inaad barato kuuma diidayso wey waxaa kale oo wuxuu ahaay meesha ku sugan aadaabta wanaagsan iyo khidaabada fiican waxaa waaye qofka hoolahaas oo kale markuu ka hadlaayo inuu xoogaa muqadimo u sameeyo tamhiid yar inuu u sameeyo uu gogoldhig u sameeyo oo markaasi arrintii uu soo waday aan looga fajicin ama xoogaa arrin yar cabsi ama hoolo kale shaki kale abuurto ayna u ahaanin inuu wax sidaas iyo wax lamida uu sameeyo iyo iyadana laga raba xadiidka laga qaadanaya can umi salamata radia allahu canha zawji nabiyi sala allahu calayh wasalama qaalat jaaءat umu sulaym imra'ata abi dalxata ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam faqaalat ya rasuula allah ina allaha laa yastaxyii min alxaq fahal cala almar'ati min guslin ida اxtalamat saasay markaa tirahdee nabigana calayh الsalatu wasalaam jawaabtu waxay noqotay nacam ida hiya ra'at ilma alxadiiثu الثالث والثلاثون can caaئiشha radia allahu canha qaalat kuntu agsilu اljanaabata min hawbi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam faykruju ilى الصalaaة waina buqca almaaءi fii hawbihi wa fii lafdi limuslim laqad kuntu afrukuhu min hawbi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam farkan fayusallii fiihi xadiidkaas waa xadiidka muxuu ahaaye 33 waa xadiid caaisha radia allahu canha wa ardaaha qaala waxay leedahay caaisha kuntu waxaan ahaa agsilu ljanaabata janaabada mid dhakto min hawbi rasuuli اllaahi salى اllahu calayh wasalam nabigeena calayh salaatu wasalaam maradiisa ayaan janaabada ka dhaqi jiray minadii baan ka dhaqi jiray faykruju nabiga wuu la bixi jiray ila salaa salaadiiu markaa iiday maradii iidaheed oo la baxay wa ina buqca almaa'i biyaha dhibacyadooda ama raadkii biyaha iyo qoyaankii iyo meeshii laga dhaqayna fii hawbihi marada raadkeeda uu kusii sugan yahay iyadoo marada dhexdeeda qoyaankii ama dhibacihii ay kasii muuqtaan oo la dhaqay ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam
salaad oo la bixi jiray kuna soo tukan jiray lafdi kale muslim wuxuu ahaa laqad kuntu waxaan ahay bay tir afrukuhu midii jajabiso min thawbi jajabidka markaa maradii saal iskugu dhex celiyo oo muxuu ahaa cidida lagu hoolow min thawbi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam farkan fayusallii fiihi markaasuu nabigana ku tukan jiray xadiidka markaa wuxuu tilmaamay dhaqitaan oo minada la dhaqa wuu sheegay waxaa labaad uu sheegay oo idaafaad uu ku sii daray markii la dhaqo maradii oo engegin oo dhaqitaankii meeshii la dhaqay wixii laga dhaqay maqsuulkii raadkiis uu sii muuqtana lala baxay haddana midda saddexaad minadii oo ciddi lagu bujiyeyna wataa iidana oo ciddi intii lagu bujiyey sidaa loo daayay liskaga tukadayna iidana waa la sheegay waxaa kaloo iidana jirtaa iyadooba la tirayba iyadoo qoyan oo qoyaankii un la tiray un oo bas iidana sidaa loogu tukaday wey kuddi markaa maxay tilmaamayaan hadday macno waxaa weye marna waa la tiraaya markaa engegantahona waa la bujinaaya marar qaarna waa la dhaqaaya marar qaarna waa la dhaqaaya arrintaas markaa culummada in badan ka hadleen oo ay arrintaa iyada isku qabsadeen minadii waxay yidhaahdeen ma nijaas baa oo dhaqitaanka la dhaqaayo ma nijaasnimaa loo dhaqaaya oo haddaan dhahno waa nijaas haddana tacaarud kala imaan karaayo wuxuu yahay nijaaso haddii meel lagu arko gacan lagu bujiyey sidaa kuma dahaaro noqonayso maradii dahaaro saas daahir kuma noqonayso oo waxay noqon lahayd meeshii laga bujiyey in la dhaqo haddana in la dhaqo ay noqon lahayd marka iyadoo la bujiyeyna waa la arkay engegno sida iyada loogu tukaday marka masaladii waxay abuurtay khilaaf bayn ahli lcilmi minadii ma nijaas baa mise waa daahir oo dhaqitaanka la dhaqaayo waxaa loo dhaqayaa linadaafati xanafiyada iyo maalikiyada waxay ku tageen inay nijaas tahay ayagoo daliishanayeen xadiidka caaisha oo tilmaamaya haddaan sheegaynay inay macnaha la dhaqay ayagoo daliishanayo shaaficiyada iyo qeyb badan xanaabilada iyo ahlulxadiidka oo idil ibnu xasm uu ku jiro shaykhulislaam ibnu taymiya iyo muxaqiqiin badan waxay tiriyeen oo ay tilmaameen inay axaadiistaas sidaa tilmaamayso ay saxiix tahay oo ay sugan tahay laakiinse dhan kale ay u daliishadeenoo waxay yidhaahdeen ma laga qaadanaayo macnaha nijaasanime waxaa laga qaadanayaa dahaaro inay tahay daahir inay tahay ayaa laga qaadanaya waxay yidhahdeen waxaa sugan oo ku tusinaya axaadiisu farqiga tilmaamaya waa xadiidka caaisha qaybtii dambe asagana oo nabi calayh salaatu salaam inay waxay tilmaamtay caaisha ciddida ay ku bujinaysay minidii oo maridii ku dhegta waay waxay yidhahdeen hadday nijaas ahaan lahayd ma kaafiyeen bujintaa la bujiyey un bas ah ma kaafiyeen waxay ahaan lahayd in la dhaqo waxaa kalooy keeneen oo yidhaahdeen culummadaas minada aadamaha waxa laga abuuray waay aadamaha waxa laga abuuray waay ilaahayna subxaana wa tacaala bani aadamka wuxuu sheegay inuu karaameeyey walaqad karamnaa bani aadama marka ma dhici jireed ma haboono asalkiisa wax nijaas oo khabiis aba karaamadaas iyo dahaarada in lagu sheego marka waxay isma keenayso ibni aadamka waxay yidhahdeen waa daahir shay daahiraana laga abuuray waana minada meeshaas ayna markaa iyadii u daliishadeen waxaa kaloo sheegeen nabigeena calayh salaatu wasalaam minada muusan dhihin ha la dhaqo oo ha laiska ilaaliyo sidii kaadida iyo saxarada oo kaleo nijaas ayhiina laiskaga ilaaliyo u dhahay minada uu muusan dhihin iyada saa uu muusan adkaynin maadaama saa loo sheegin waxaa laga qaadanayaa dahaaranimadeeda ayaa laga qaadanayaa yidhaahdeen adiladaa faraha badan oo soo hormartay oo xanafiyadii maalikiyada ay daliishanayeenna waa jawaabo badan ayay ka bixiyeen oo waxay yidhaahdeen jawaabtii ka bixiyeen waxaa ka mid ah inayna ku tusinaynin nijaasanimo oo waxay yidhahdeen xaaqadaba waa la iska dhaqaa nijaasanimona kuma tusinayso waxa loo dhaqaayana waxaa un waaye linadaafati iyo istiqdaar la nacitaan la nacaya maa loo dhaqaayaa mooyaane ma aha nijaasanimo marka axaadiista khulaasadu waxaan ka qaadanaynaa minada inay daahir tahay dhaqitaankeedana uusan waajib ahayn marada iyo muxuu ahaa badanka intaba
waxaan laba ka qaadanaynaa sidaas oo kale in la jeclaysa laakiin marada iyo badanka in laga zuuliyo hadday qoyan tahay hadday engegan tahayna in laga bujiyo markaa iyadii الحديث الرابع والثلاثون حديث كصدن إيه أفراد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل حديث كان وحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وحوت الماما يا نبي عليه الصلاة والسلام إنه يرادي إذا جلس مركو فديسته نكرر كيسو وقلمونا يواي إذا جلس مركو فديسته بين شعابها الأربع أفرت أدين لحظة أما لبد اللغات لبد اللويوت لحظة ثم جهدها وددال وحلقة وضع معنا وحاويان فرجك أوقل يواي فقد وجب الغسل قبيس يا واجب يا وير النبي عليه الصلاة والسلام لفظ كله وحوت الماما يا وإن لم ينزل بيا يا بيسودقنا هداي ربان بيا يا إيمان لكن وحوير وحا واجبي قبيس يا واجب ويا شعبها الأربع وحا الله ولا قارا يرادين لبدا قعمود يا لبدا اللغاد وي لما أنا وحاول لغا ولا كناية عن الجماع وي معناها ثم جهدها ما شو يرادنا وكناية عن الإيلاج قلتانك يا مركا الله وكنايون ياوي إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ودلاله ومعنى قلموتك وحي أوسمي واي فقد وجب الغسل قبيس أيا واجبا يا وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل حتى محوها هدين بييمان مر قلموتك هدوة دعوبة وإن لسجارو أي دعضه oo macna waxa waaye gudmada kale ay taabato iltaqal khataanaani weeyaane oo markaas ay u kulmaan qabeeska macna wuuba waajibay in janaabada iyo waxaas muxuu ahaay laga qabeesto xadiidka markaas macna sidaas ayuu tilmaamaya wujubu alqusl min ilaaji dhakari fi alfarj walaw biyaaba iimaanine xadiid marka miduu tilmaamaya waa midaas waay midda iyada weeyaan oo ahadiid kale oo kala waxa jisunaysaa oo tusinaysa jirta xadiidka marka uu nasaxaya tilmaamayso hadii macna qofka la abaareeyo reerkiisa duunta u galmoodo biyo aan ka yimaanin inay muxuu ahaay qabeys aan laga rabin ama almaa min almaa yani biyaha ka yimaadaan ayaa biyo waajibinay biyo mar haday ka yimaadaan markaas ay biyo inaad ku qabeysatana ay ka waajibaysaa hadii uu wuxuu tilmaamay xadiidka marka haddii marba xadiidtaas oo markaa waa mansuukha xadiidkan ayaa markaa nasakhaya oo tilmaamaya haddii muxuu ahaay mar uu muxuu ahaay labadii gudmaba isqaabilaan labadii gudma hadday isku beegmaan ama muxuu ahaay farjiga muxuu ahaa inta hore oo birta ay ku dhacayso macna waxaa waaye intaa haddii ay qarsoonto markaas uu shaqadiina sii wado waay faqad wajaba alquslu qabeys ayaa waajibay sida ayuu tilmaamayaa وإن لم ينزل بوير هذا يرمان بيه محو يابي إيمانين لكن وحاول قبيسك أصدقها هو واجب النبي عليه الصلاة والسلام مركا أحاديث كاس الماء من الماء إيو أدلة أصفرها بضن أيو مركا حديث كاس من أنها لغو نسخي الحديث الخامس والثلاثون حديث كي صدن إيا الشنات عن أبي جعفر محمد ابن علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية حديث كالصدن يا شناد وحال قوري أن لا يراد أبي جعفر
محمد ابن علي ابن حسين ابن علي رضي الله عنهما مركا أبي جعفر كاس وجعفر الصادق نينكي الأورنجروي محمد waxaa laga wariyay markaa waa محمد الباقر محمد ابن علي ابن حسين وزين العابدين ninkii magaca la baxay way wuxuu ka wariyay markaa حسين muxuu ahaa علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه أسقي أبيه markaa waxaa laga warinaya waa حسين ابن علي gaas waay waxaa ka warinayna waa علي ابن حسين way waa علي ابن حسين wuxuu yiri markaa waxay la joogeen Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari ninkii ahaay waa odaygii aad u duqoobay nin da'weyn uu ahaa markaa indha beelay ninkaas ay la joogeen wa indahu qawmun dad ayaa la joogay buu yiri Jaabir dad ayaa la joogay fasaaluhu waxay weydiiyeen an al-ghusl nabiga qabayskiisa ayay weydiiyeen faqala wuxuu yiri yakfiika saa'un suus ayaa kugu filan waa 2 kiilo iyo xogaaw ayaa kugu filan buu yiri 2 kiilo iyo nus ayaa kugu filan oo biyo ah waa shanlaha oo kale waa faqala rajulun nimba wuxuu yiri ma yakfiini iguma filno buu yiri aniga saddexlahaas waxa la midka ah iguma filno faqala Jaabir ayaa wuxuu yiri markaa kaana yakfi wuxuu kaafin jiray من هو أوفى منك شعرا نين أديك كاتم بدن عد أديك كاتم بدن أيو كفلنا وخير منك كان خير بدن يريد حين أولج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيون أولج إلى ثم أمنا في ثوب جابر إسلام مركنا هدنا هل مرأة أيو نوو إمام نقطوي هل مرأة يوهاس سوقات سومري بدن ماشي ويالان أيو مرأة سوقات وين وهلابتي سهل بدن كجرتي أيو مركا wuxuu sameeyay dadkii buu tukiyay buu yirsaasuu u tukiyay wa fi lafdi kale wuxuu kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yufriqu al-maa ala ra'sihi 3 markuu qabeysanayo madaxa 3 jeer ayuu biyaha ku shubi jiray qaala al-musannif wuxuu leeyahay ar-rajulu alladhi qaala yiraada ma yakfiini huwa wa Hasan ibn Muhammad weeyaan Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib waay Hasan ibn Muhammad markaas muxuu ahaa waa ilmo adeer waay waa ilmo adeer Muhammad ibn Ali gaas Hussein ibn Ali gaas iyo muxuu ahaa Muhammad ibn Ali gaas halkaas ay iskaga soo dhacayeen wuxuu yiri markaa wa abuhu abihiisana waa Muhammad ibn al-Hanafiyya ninka la baxay waay Muhammad ibn al-Hanafiyya nisbatu ila jaddi iyo asagana ninka asaga waay وعن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي مركا محو تلمامايا حديثك وحو كهدلايا نبي عليه الصلاة والسلام به وكو قبيسن جري قدركي أيضا نايين وحو تلمامي نبي عليه الصلاة والسلام إنو كو قبيستي صاع إنو كو قبيستي و5 أمداد وشن مد واي شن مد إنو كو قبيستي نينكي مركو يراد أنيغا إيغو ما فيلدنا آد أيو إنكيري ولا دقالمي wuxuu say ku dhici kartaa cid adig kaatin badan kaana khayr badan ayaa ku qabaysan jirtay una ku filnaaw marka israaf bihi iyo wax aan loo baahnayna wadaa buu yiri saas buu ku yiri isla markii hadana Jaabir wuxuu yiri wuna tukiyeyo asoo salaada nabiga kaleey salaatu salaam nambaraayo wuxuuna noogu imaam noqday buu yiraaday muxuu ahaa hal mara ah ayuu noogu imaam noqday oo marada weyn intuu xirtay ayuu sida iyada u hilaabtay labada dhinac garbaha kaga ritay ayuu nagu tukiyay buu yiraahday Jaabir waxa uu si tilmaamay oo kale muxuu ahaa qaabkii uu nabiga kaleey salaam biyo uu shubaye oo wuxuu yir madaxiisa ayuu 3 jeer madaxa ku shubi jiray biyaha وعن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم قليا لجوغن فسألوه عن الغسل قبيسك ويديين فقال وحير يكفيك صاع سوسا يكو فلا فقال رجل ما يكفيني إيغو مفلن فقال جابر كان يكفي وحكو فلا من هو أوفى منك شعرا عد كاتم بضن أو تنت حقا كابضن النبي عليه الصلاة والسلام وتم بطنا مر معناه حوي شفرة إيو
lama iyo muxuu ahaa tintiisa saasay noqon jirtay inta inay gaarto inay dheeraato inay muxuu ahaa timada dheer ayuu nabi calayhi salaatu salaam ayuu lahaa timahaas markaa oo dilada ay la nadaamsadona waxba dhib mala iyadana muxuu ahaa saas waa thumma amara fi thawbin hal marana muxuu ahaa uu inoogu imaam noqtay buu yiri lafdan kale wuxuu ahaa kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yufriqu al-maa ala ra'sihi thalatha madaxa ayuu ku shubi jiray 3 jeer biyihii si madaxii ay u wada gaaraan oo kullu shacara tahtaha macna janaabo tin kasta hoosteeda janaaba ku jirta marka si biyaha loo gaarsiiyo oo madaxii biyaha uu uga dhirgo ayuu 3 jeer nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu biyaha ku celcelinay meelaha biyaha timaha qabaan oo laga yaaban yahay inayna biyaha gaarin ama meelaha laablaabka qofka markuu janaabada ka qabaysanayo muxuu ahaa waa inuu muxuu ahaa meelaha biyaha gaarsiiyo meelaha iyada waa inuu biyaha gaarsiiyo musannifka wuxuu leeyahay marka ar-rajulu alladhi qaala ma yakfini huwa Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa abuhuna Muhammad ibn Hanafiya weeyaan saasoo marka iyada ayuu tilmaamay ninka ila joogayna waa Jaabir ibn Abdullah oo saxaabi weyn oo jaliil ay marka cilmigana ka qaadanayeen taas ayuu marka iyada tilmaamaya xadiidka marka maxaa laga qaadanayaa janaabada ka qabaysigeeda waajibnimadeeda oo sida adilada hore u soo qaadanay xadiisi hore ayuu kana tilmaamaya iyo in lagu shubaayo biyaha jirka cudwooyinka xibnaha lagu dul shubaayo markii uu qofkii ogaado inuu macnaha biyaha ay wada gaareen markaas uu ka dhaqaaqi karaa laakiin inta horteed inuusan ka tagin way marka al-imam muxuu ahaay ibn rushd في بداية المجتهد محوها وحكيرو تلمامي وحلقة قادنا يا برو الدلة لأسلقة ما قادنا يا وحلا يراده لزوم الدلك وعلى عدمه مدنة دلك إنه واجب يهي ومعنى قف الجرك إنه قعنت الراعيه إنه واجب يهي إنه سن واجب يهين منا لقى ما قادنا يقول الدلة لكم ما تصنيس إن لا دقا ما يكونشين يبيل وشوا يكون تصنيسه دلك قاعد الشديس اللازم من مدرسة كتجتان كيسة midna meesha iyada laga qaadanayo buu yiri saaca marka lagu tilmaamayna waxa waaye waa 4 amdaad way waxayna ku filan tahay qabayska janaabada ibn daqiiq al-eid oo marka laysa ala tahdid buu yiri saayida tahdid ma aha waa laga yarayn karaa waana laga badin karaa hadaba inta qofka ku filan ayuu isticmaalayaa inta ku filan ayuu isticmaalayaa biyaha marka iyada waxa kale laga qaadanayaa in la muxuu ahaay in la takhfiifiyo biyaha lagu dahaara qaadanay biyo yar in laga dhigo oo biyaha aan la israafinin walow daw ay meel biyo badan aad u joogtide inay biyaha idina muxuu ahaay aan muxuu ahaay la badbadinin na waa laga qaadanaya xadiiska waxa kale oo laga qaadanaya in la inkiro cidi sunnada nabiga calayhi salaatu salaam intii loo sheego diido in lagu inkiro waxay wada baatila wada taawi bid'a baata in la yiraahdo waxa sheegay maxay cid ka khayr badan oo ka tin badan iyo isticmaal jirtay oo ku filnaa sidaas uu naka ide uu uga jawaabay baabu tayammumi tayammumkii ayuu u baab yahay tayammumka luqada waxa la yiraahdaa al-qasd ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka waa kala aamin al-bayt al-haram aamin bimaana qasidin way idinka uu qasdaayo baytullah al-haram marka lafdigaas tayammumka macna waxa waay waa macna qasad ayuu noqtaa waxa kale oo marka sharcigana loo wadaa ay yiraahdeen waxa waaye tayammumka masx alwajhi walyadayn bishay min as-sa'id tayammum waxa la yiraahdaa wajigi oo la masaxo gacmihi oo la masaxo shay oo saciidka kamid lagu masaxo saciidka marka ma yascud ala al-ard baa la yiraahdaa waxa dhulka ka dulbaxo idilba ma dhagax lagu suraha ahaado ama geed ha ahaado ama wax baxay ha ahaado ama dhulkii caradiisaba ha ahaato kaas oo marka saciid soo galaya culimada qaarna waxay yiraahdeen waxa la yiraahdaa daharatun turabiyatun tashtamil ala masx alwajhi wal yadayn inda adam almaa aw adam alqudrati ala isticmaalihi wa dahara qaada shacra lagu dahara qaadanayo laguna masaxayo wajigii labada gacmood biyo waayitaankooda ama biyo isticmaalkooda laga cudur daartay loo isticmaalo ayaa la yiraahdaa marka tayammumka waa gabagabeesi way oo qofkii oo biyaha sanin ama biyihii ka cudur daartay inuu isticmaalo biyaha yarba ama cudur daar kala ku sugan oo biyihii meesha inuu isticmaalo jareexo qaba
ama sabab kalaa jirtaa oo biyaha u diidayso markaa sidaas oo kale uu qofka u gebagabaysanaayo taas ayaa marka iyada hadda waxaa loo jeedaa tayamumka waa midda iyada weeyaan tayamumka markaa wuxuu ka mid yahay waxyaalihii khusuusiyaadkii ummaddan muxamediyada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo fudeedka diintan muxamediyada ay tusinayso iyo suhuuladeedii shareecaddan fudeedkeedii iyo xarajkii iyo laga kor yeele ayay tusinaysaa weeyaan marka waa uu ku dahaaro qaadanayaa baatinaha wa daahiraha labadaba barakaa ku sugan welina oo nabi calayhi salatu salaam uu sheegay qofkii hadduu biyo waayana waa isticmaalayaa hadduusan biyo waaynin si kale uu cudur daartoona cudurdaar kale ku qumona iyadana muxuu ahaa wuu isticmaalayaa muxuu ahaa carrada iyada ama saciidka ayuu isticmaalayaa الحديث السادس والثلاثون عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ما إذن قرن عنه ما إذن قرن عنه صمها ها صفيعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه البخاري حديث كصدن إلى اللحاد وحال لغوري عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوير نكا سقاه رأى وحو أركي عمران رأى وحو أركي النبي قد هذا بس حديث عمران يا ورنا يا markaa nabigu ka warinaya wuxuu leeyahay nabiga wuxuu arkay rajulan nin buu arkay muctazilan ka fogaaday dadka lam yusalli fi lqowm dadka aanan la tukanaynin nin dadka ka fogaaday oo jamaacadii salaadii la tukanayay dadka aanan ku dhex jirin oo meel xaggaa oo kale iska taagan ayuu nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa fulaan war hebelow maa manacaka an tusalliya fi lqowm maxaa kuu diiday inaad maceena tukato maxaa kuu diiday war dadka maad la tukatid waaye maxaa kugu dhacay faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuul allah rasuul allow asaabatnii janaabatun janaabaa iga yimaatay minaa iga yimaatay walaa maa'a biyo aan ku qabaystona maanan helin sidaa aawadeed markaa dadkii ma dhex gelinoo halkaasaan iska taagan yahay buu yidhi فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكيرادي عليك بالسعيد عليك واسم فعل المنقول مركا وحيرادي وحال لازم تا عر لازم سعيد لازم سعيد كانوا حنا نعرض كل ما هي وما يسعى على الأرض وأدل على جراده واحد لك كريه كصب حو أدل بقى دربنا دور وهدوه دور وهارو شافعين أيه وعي قبان إني عرق طايق بس لكن وحا دربي ينقون كرتا جيدا ينقون كرتا وحا صيد الوضعان كرتا عليك بالصعيد بوير محوها لازم محور الصعيد لازم بوير فإنه يكفيك وحا كوكافنا وكوكو فيلان سعيد كاس أصغى أيا كوكو فيلان بوير هذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث كاس الإمام البخاري أيا صوصاري مركا محوت المامايا nin baa janaabo ku dhacday jamaacadii la tukanayba muuba la tukanina halkaas buu iska istaagay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa hadda ninkii lama sheegin laakiin waxaa waye in la yidhaahdo khallaad ibnu raafic waana ninkii salaada halleyn jiro oo kale mar kale musii'u salaatii loo yaqaanay salaada halleyn jiro waay haddana waa isla hasagii haddana wuxuuna yidhi walina kaana miman shahida badara wuxuuna ka mid ahaa asxaabu beder ninka asaga asxaabulbederna ka mid ayuu ahaa افعلوا ما شئتم قد غفر الله لكم أعطيك الله ده هو وأصحاب بدر وي لكن مسألة ما قلت هنا فضل أذيقه له فاضل فضل فرب ضل له مسألة ويكهوسي كرتا مد الله بعد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام نبي جوجو مسائل دين ومرقار ويكون اجتهادين نيجا هو اجتهاد هذا وهو أركا جنابه ده يكون عدي إنه قام كعيق يتلقى تكنايو إنه سنحجلي كرين هل كسيول استهادي تباركز عمران بن حسين مركز أركي دون ناس واجتهادي أو محوها إذا جنابه كون عدي قال عنقش إذا أركي دون إنه إمام بطا مركز نينكا أسجع أيوها وحديث كمركز النبي عليه الصلاة والسلام وحكير محاكو قرعي ورواسه
qofka markii arrimada lagu arkona intaan wali canaan iyo hool kale aan lagu soo boodin nin waxyaalo khaldan sameynaya hadaad aragto intaadan wali canaan iyo dagaal iyo gacan qaad aadan fooda la gelin bal ogaa goor hore su'aal weydiba waxa laga yaabaa iskaalaad badan iyo waxyaalo badan adiga ka daboolan oo hadii lagu sheegana aad cudur daar u lahaan lahaa inaad waxa la si fudud ku dul martaa laga yaabaa marka waa inaad ogaa hore su'aal weydiiso xadiidka marka maxaan ka qaadanaynaa waxaan ka qaadanaynaa wax la yiraahdo tayammumka wuxuu ka naa'ib noqonayaa qabeeska xagga tahaarada janaabada biyaabad waasayba waysana ma haysatid muxuu ahay qabeesna ma haysatid maxaad yeelaysaa labadaba ma haysatid waxaad yeelaysaa waad un tayammumaysaa oo tayammumka noocmaa wey tayammumkii waxa waaye nafkiisa lama ka sayba mushkilada jirta ay ka mid tahay tayammumku waxa dhulka aad ku dhufanaysaa ama darbigaas aad markaa gacanta ku dhufanaysaa wajigaad marinaysaa gacmahana sidaas aad u marinaysaa waa mar macnaha aad wajiga marisay iyo mar aad gacmaha aad marisay waana hal mare way waa inoo imaan doontaa adiladeedana iyadana iyo khilaafkii hadalla badan inuu ku jiro iyo qaabka ay culimada waxay mareen marka tayammumka marka wuxuu naa'ib ka yahay muxuu ahaay biyihii oo markaas iyaga ah ayuu bedel ka yahay tayammumkana kuma imaado nin biyo waayo bas wuxuu ku imaan kana mutadarrir biisticmaal ilmaa nin biyihii isticmaalkooda dhib ku yahay jareexuu leeyahayba jareexada waxaa le madax inuu daqar xun kaaga yaalloba ama gacantu wax kaaga yaalloba ama falambada ay kugu xiran tahayba maxaad samaynaysaa waad weysaysanaysaa xibnihii kale waad ka weysaysanaysaa xibintii iideed cilada qabta markaad soo martana waad u gebagabaysanaysaa ka dambena weysadaadii ayaa sii wadanaysaa janaaba hadday kugu dhacdona waad u gebagabaysanaysaa bes way kugu filan tahay marka sidaas oo kale muxuu ahaa waxaa kaloo laga qaadanayaa jawaazu lijtihaad fi masaa'il alcilmi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo joogo saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam inay ijtihaadeen oo in culimo caalim uu joogo qofkii inuu ijtihaadi karo ilaa uu muxuu ahaa biyo uu ka helo sidaasuu marka iyadu ku sugnaan rabay waxaa kaloo iyadana noo imaan doontaa sidaas oo kale na tusinaysaa qofkii macaan hadduu cibaado sidaa ku guto cibaado sidaa hadduu ku guto sidaa uu malaynaya intuu ijtihaaday ijtihaadkiisana khada uu noqtay dhow dib dambe uu ku ogaado masalada inuu sawaabkii u waafaqanin masaladii tii iideed soo celi markaa iida haddana lama odhanaayo taa ii saas marka iida ee sidaas muxuu ahaay ku tagta الحديث السابع والثلاثون حديث كصدن إيا تضبات عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجتنبت فلم أجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه عمار بن ياسر رضي الله عنهما وحلقوي قال وحير عمار بعثني النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي إدري في حاجة دن أيوم إدري نبي حاجة يدن إدري صدموير فاجتنبت وأسكت جنابي سيئة يقول ما طيبة جنابي إلي ما تبوير فلم أجد الماء بيمان هرم بوير وحبيا أن هلينا مجرين فتمرقت وانقل قشبوير لكي اسكر رقوي في الصعيد لكي دحديسان كو قل قشبوير كما تمرق الدابة دابة ساوقل قلتوكلي يعني أنا نحوها لكي اسكو رقوي لنعيض أذل إيو سيداسا اسكو رقوي بوير ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال أي مالي فذكرت ذلك له أرنتي بان أشياء نبي الله بيان وايي صلاة دي باي قبطي وانقل قشبوير سيداسا يقول دعدي oo maadaama la yiraahdo biyaha jirko idila la marinay ee wuxuu yiraahdo carradana biyaha bedel ka yihiin waa ina ta'miimul maa bil turaba ina dhacdo wiir ta'miimul maa bil badan sameeyeen ta'miimul maa bil turab wiir isagana marka xaga jihadki ijtihaadkiisa xagaas uu la galay nabiga uu sheegay faqala nabigu wuxuu yiraahdo inma kana yakfiik waxa uu kugu filnaa
أن تقول بيديك هكذا، أن تقول بمعنى أن تفعل إن تسميسو قعمها هذا هكذا سيدا صوكرة أو سيدا واكن ثم ضرب بيديه الأرض لبدي قعمود ورقك كل ضربة واحدة هل مروا كل ثم انت كذب مسح الشمال على اليمين وحو مسحي بدحده على اليمين وكو مسحي وظاهر كفيه ووجهه وجهنا وكو مسحي هذا ميشاس وحو نوت المامي إن لم مسحي قعنتها الله مسحي وجهنا لدن بيسي لكن وحو استعمال علف واونا حروف علف كان أو واحد سكوب عطفنا محوها واو أكله مطلق الجمع على يراده كما كلا تسينا التقديم ولا تأخير منكم تسيو سيدا أوديت مركا وجهه يا الله مرينايا كعمها أنا ويدا بيننا مسدس عن عمار بن ياسر رضي الله عنه ما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجتنبت فلم أجد الماء فتمرقت في الصعيد عرضي باكوك القشبوير كما تمرق دابة سأقول عن قلتوك ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبغى أنتك فذكرت له ذلك أرنك أبا أنشأ فقال حير إنما كان يكفيك وحكوك في الله أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه وكله أن تقول بمعنى أن تفعل وقوله بمعنى فعل ثم ضرب بيديه الأرض قعمه الأرض كله في ضربة واحدة هل فشاء ثم مسح الشمال على اليمين بذحديب ومذكت كدر مسحي وظاهر كفيه ووجهه وجهي لبدا كفاض أيو مسحي علماء مركا مسألة إيدة واسكو قبته تيمم كضربة واحدة للوجه والكفين أو لا بد من ضربتين ومسألة وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين لوسي دفشدو مهلبا مسوا لبا مد اللبات مسح قعنتا لما مسحايا ما كفكونا لما مسحايا مسوا حلقينا يا إلى جقلك إلى سحولك انت اسمي لقيني بسلام مركز سداس اسكوغو قبتين ولا دله qaarkooda waxay ku tageen oo Shaafiiciida ay kamid yihiin inay tahay laba dhufasho ay wajigu leeyahay dhufashada kalena gacmaha ay leeyihiin labada gacmood oo walina la geynayo mirfiqa suxulka in la gaarsiinayo Shaafiiciida sida ayda qabaan kutubtood mutuuntoodana sidaas ku qoran daliilkii ay daliishanayeen waa adilada xadiis fara badan oo imaan doonto oo laakiin sanadkeeda wax uu ku jiro waa idiraab iyo dacfi fara badan uu ku jiro marka adilada daliishadeen waxa kamid ah xadiis daarulqudni uu soo saaray min xadiis ibn umar radiyallahu anhuma uu yiraahdo at-tayammum darbataani darbatu lilwajhi wa darbatu lilyadayn ila almirfiqayn wa darba oo wajiga ah iyo muxuu ahaay darba labadii gacmood ilaa suxulada intii laga gaaro daarulqudni iyo xadiiskaas markaa iyo Tabrani fi al-Kabir Bayhaqi fi as-Sunan iyo xadiiska ku warinayay جمهور العلماء أو المحدثين waxay ku tageen uu kamid Imam Ahmed Awzaa'i Ishaq ahlu الحديث كإذل تيمم كإنه يهاي ضربة واحدة هل ضربة إنه يهاي ku tageen ضربadaasna waxay yiraahdeen laguma masaxayo wajiga iyo kafaanka mooyaan meel kale labada halka darbadana macna waxa la wada deeqsiinayaa wajiga iyo labada kafku waa inta hore way kafka waa inta hore waxaana u daliishadeen xadiis saxiix ah oo kamid yahay xadiiska saxiix al-Bukhari ku sugan xadiis Ammar ibn Yasir oo hadda meesha aan akhrinayno Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala sidaas wuxuu yiraahday ayay culimadana fitiyoon jireen sidaasana lagu yaqaanay sidaasana wuxuu yiraahday ku taga Ammar ibn Yasir sidaas usagana ku taga buu waxaanay ka jawaabeen culimo badan muxuu ahaa ahadiisi darbataynka tilmaamay xadiiska ibn Umar ahaa way ka jawaabeen waxyaalaha uga jawaabeen way badan tahay waxa kamid ah inay tilmaameen in Abdul Bar yaa kamid raga ka hadle waxay yiraahdeen akthar al-athar al-marfu'ati nabi alayhi salatu wasalam wixii ugu badan oo loo koryeelo wuxuu ahaa
حديث لو كره الحديث عمار أو ضربة واحدة واي وحي كسر ضربتين يا أدلة تلماميسو يلا برضو فش تلماميسو أما إلى بروها سحولة إلا جارتيو أدلة تلماميسو إذل كلها مضطربة بين دي وحديث إضراب وكجروي ابن دقيق العيد أصلاً مسألة وعلماء واحد كشكت وكجري وحير أحاديث مركز اسكو تعارضي أحاديث كان هو ابن عمر ما تعارضي كرا حديث كعمار بن ياسر حق درجة أهان ما تعارضي كرا الدليل إلا ولك الرجحة مركز إسقاطان نسق هدوس جرين وحال اسكو حديث كإن محل ترجيح من باب الترجيح مركز من باب الجمع هدوس ورجلي وايوي من باب الجمع هدوس ورجلي وايوي خطابي أصلا وحير ذهب جماعة من أهل العلم وحيكون وذا تجن ضمان توضا ضرب واحد إنه يهي وجهي كفينك وأنا مذهب أصحة حق الرواية دي ورنت عديسة وصلاة بيرة دي وكذلك هذا البدن هي خلاصة وحاوة إني معنا ضربة واحدة أي تهي أو ضربة للوجه ضربة نمحوها للكفان أي تهي يحديثك تصنايا حديثك مركب حانك قادنا هنا وحانك قادنا هنا تيممك إنه نقنايا قبيس جنابه لقي قبيسنا إنه بدل نقنايا بدل إنه نقنايا يوم مد اللبعض هدي قف بيا الآن مركا وتيممايا أنتم سنولي تيممين بيا الآن تضادو تيممايا ومركا إنه بيا رادي بيا وايو مد سدحات صفة التيمم أيو تلمامي أو قابب كاس ضربة واحدة ووجهك هدنا يدينك أيو تلمامي ابن رشد رحمه الله تعالى وحوت المامي إطلاق الحويراد اسم اليد على الكف أظهره من إطلاقه على الكف وصاعد يد مركي لا يرادم وأدلة أي تصنيس علماء خلاف قال وحويراد لفظ يدك كف وقدعة إنه قعنته إلى سهلك وقدع يد إنه كفك قدع وحا كعام سنبوير إنه يد قدع هذه مجموع ضمبيصدي سداس ودادنا حوها كتجاو تيمم كالحدث الأكبر لا تيممه وحاي لمتها هاي كتيمم الحدث الأصغر لمتها خصوصيا ما لا تيمم يا حدث الأكبر أمر كان لا تيممينا أما لو قبلت لا طهارة قاتينا وهي رادانا طهارة الصغرى تدخل تحت طهارة الكبرى مرة دي لا تيمم بقى أما لو قبلته طهارة هو سوي سدأ waxay hoosgalaysaa tayamumkaas weyn ay hoosgalaysaa macnaha hadii janaabo ka qabaysato oo janaabo aad ka qabaysato oo tahaarada weyn aad qaadato tahaarada weyn xadathul akbar ka iska kor yeeshay tahaaradan yar oo weysada ah haba lagaaga ma baahno qabayskaas ay dhaxgalaysaa muxuu ah weysada waxa fiican marka hore intaad qabaysato oo weysaysato inaad hadana qabaysato yaa ku fiican laakiin hadaabay dhicinba oo qabayso isku bilaawdo aabad qabaysato qabayskaadana uu yahay inaad janaaba ama hayd ama nifaas ama wax qabays waajibinay aad ka qabaysanayso waxba weysa kale lagaaga ma baahno waxay yiraahdaan markaa tahaarada weyn xadadka weyn iska kor yeelaayo ayaa waxa hoosgelaya tahaarada yarna xagaas ee iyadana hoosgelaysaa waxba weysa kale dib ugu sii noqonaysid waxa kale oo meesha markaa كسوغان وحديثك وعدينايا تيممك معها مبيح كلح معها إباحة كلح معها ومع معناها عبادة إن تجودتون مبيح معها ورافع رافع للحدث واي رافع للحدث واي أصلا مدة حديثك وعدينايا معنا ومدهم كوبا نيرة ضرورية كتكتون قدر كايرون معها ورافع للحدث فإذا ولا قادنا يراد وهذا الحديث لا قادنا اللي في مسائل العبادات عبادات قيمة كمية إذا نقول اجتهاد كره أو إذا حديث هذا وكقادنا يناويه هذا هو الله بدل حديث كمركع قصوره الحديث 38 حديث كي صدن إيه سديدات عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعدهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مصيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة
فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. حديث كان وحلقه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير هذي نعم إلى الناس كافة ويقرأ عام وإذن قرأ مئة إلى الناس عام إيه ما كان عطو كله لفظي قال إنه سوية مركب أولوده. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير أعطيت وحل إسي 5 شن لم يعطهن أحد من الأنبياء قف إيجاه الرئي أو أنبياء كمية أو لسيين مجري شنطة صحوير إلهي سبحانه وتعالى أنا إسي شنطة محيطها نصرت بالرعب مصيرة شهر وحال إيجو قرقاري بوير مال بالله صعنايو إن ليغسي أرجعه محمد عيدا كيسا صوص عداني نبي محمد مقعيب هديب الله الشيء عيدا كيب هديب الله الشيء يضدك نبي عوص هاي للسعودي إني وحوها مال بالله صعنايو مركان أصي جربة إني معناه وحاوي هيبة النبي عليه الصلاة والسلام لو تاجنا وايو ومال بال صدم بالله صعنايو وهيبة الله سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام أوصيه قالوا كسر دي أرجع ما قلبك كقطعة وسيف شيل ما يم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مد اللبات دولكو إذا ليا مساجد ليجا دجبوير وحلو طهارة قاتنا واللي إيجا دجي دولكو واللو طهارة قاتنا يا مسجدنا واللي إيجا دجي وحير ولنا فأيما رجل ننكي كأهو من أمتي إذا كمية أدركت الصلاة صلاة أي هلايشة فليصلي صلاة ما يشي كو هلايشة هكتو كذا ديت كاس وأن تعليقين دون الدواء والقنين وأحلت لي الغنائم غنائمتنا حلال بالإيجاد دجيبوير ولم تحل لأحد قبلي عيد يجاه الرئيس أو غنيمة حلال الله دجينا مجري ومدنا إلهي سبحانه وتعالى النبي قال يا إلهي سبحانه وتعالى وحلال أوقاته نار يا ضب يا عرك إيمان جري غنيمة لك يعني مركا قادن جرين عون جرين سداس يا مركا إذا هو هاي هوران تساس يكون سبعين جرت لكن هذا وحير هذا وحنا وقلنا دقي أنجا وإن الله أقول هذا أنت إيدي وعطيت شفاعة نوال إسي وير نبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة وين شفاعة بدنا جرتاي شفاعة وتلمام يا مركا وشفاعة العظمى وماشي إلهي وكو خصصي المقام المحمود وشفاعة العظمى وإلهي سبحانه وتعالى وكسو صار دونه ميل أمضها وإذن محوها هاي كو مهادين دونان نبي عليه الصلاة والسلام ومركي انت أتغان أبونا آدم وديه دونه عرداران دونه نبي نوح نبي إبراهيم نبي موسى نبي عيسى قدم بأصيغ إلهي سبحانه وتعالى وكسو جوز دونه تحت العرش الرحمن ومركا الله أراني دونه اشفع تشفع واسأل تعطى يا نبي عليه الصلاة والسلام له دونا تاس إيده مركها مدو كهلاينا ومد إيده واي وكان النبي وحانجر يبعث إلى قومه خاصة ودي ساسي خاص عن لو سودري جري أسقه وبعثت إلى الناس عامة أو كافة أنا وحال إيسو دربو يرادي ومضاه إذلبا واللي إيسو دربو يراني نين كستاوى النبي بان أهاي ومحو أهاي واللي إيسو دري سيدا سيو النبي عليه الصلاة والسلام أيوت المامي حديث كمركا كو وحوير النبي عليه الصلاة والسلام وحال إيسيي وحدتك كلا عن لسينين waxyaalo badan oo shanta gelix meehay waa badan tahayba meel waxyaalo kale oo fara badan arki doona waxyaalo kale oo fara badan oo ay kamid tahayba muxuu ahaaye hataa madax ay ahaan jireen hadii muxuu ahaaye dambi nijaasa meel ka gaarto in la gooyo midii lagu gooyo wax kale lagu gooyo waxyaalahaas marka adeegaas iyo culeysyahaas iyo muxuu ahaaye ummadda Muhammad sallallahu alayhi wasallam ummadiisii marka malaha wuxuu yiri marka waxa la isiiyay wax umadaha kale aan la siinin oo waxa la igu gargaaray meel bil loo socon karo meel bil loo soconaayo
in macnaha waxaa waaye egaan soo socda la argagaxo oo ilaahay ugu gargaari buu yiri dhulkina waxaa la iga dhigay wuu yiraahday masaajid meel lagu tukado iyo meel lagu dahaaro qaato ninka ummadayda kamid ah oo salaada ay haleesho meesha ida ku tukado marka looma daliishan karo xadiidka asaga ah qaybta faqradaas labaad inaad tiraahdo masaajidaba ma aadayba maxaa nabigeena wuxuu dhahay wajcila liyal ardu masjidan masaajida wala iga dhigay macnaheedu ma oo waa makaan sujuud way meel lagu tukado cibaadada kaaga gudmayso way laakiin se ragga qayngaarka baaliqiinta ciidaar kale aan lahayn jamaacada waajib ay ku tahay inay imaadaan jamaacada inay imaadaan oo ku soo tukadaan waajib ay ku tahay laakiin cid hadii ku tukadaana salaad way ansaxaysaa laakiin waa aathim oo dambiile waay aathim nabigeena kaleey salaam good dheer adag baa soo aroor garanaysaan ninkii indhoolaha ahaa nabi kaleey salaam abdullah ibn muxuu ahay ninkii la oran jiray abdullah ibn maktuub adeegi waa noo imaan doona mid ayida marka nin indhool oo wax hogaamiyo jirin oo masaajidka imaan karin oo marka khatar badan ay jiraan hadii marka cudurdaar iyo ruqsa ay jirto ninka Allah ruqseen la inta cid iskaga sheekaysato danahaada khaas iska haysato hadhowna inaad tiraadaan waxba waliga ma rababa ama aba tiraado masaajidan muxuu ahaa buuq iyo qaylidii muxuu ahaa ka jirto bisinka laga tagay faatixada lagu dhex gowraci anima ku tukanay oo iska ciyaar waxa iyada waxa xaloo baahan yahay waxa iyada xaloo baahan yahay nin oo marka masaajid diineed waxba ka aqoonin warna aanan ka haynin inuu sharci idlaaday oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo dejiyay ahkaam la saaray takaliif ah la saaray inuu kaga tago ciyaarta iyo jaas-jaaskaas iyada nafteedaaba dambi iba taas iyada nafteed ayaaba dambi ba wa uhillat li al-ghanaim wa hali halal yeelabu yir ghaniimadi walam tahil li ahadin qabli cid ani iga horeyso halal looga dhigana ma jirin buu yir uqdiitu shafaa'a shafaa'adina waa li isiyay وكان النبي هو يبعث إلى قومي قل ذي سكي الله صار خاصة وبعثت إلى الناس كافة ومضوا إلى عنقنا لإسو صار ويراد النبي عليه الصلاة والسلام خلاها سؤال يا حديث مركا وحديث وين أو فوائد فربنا صو أروري كو نبي محمد عليه الصلاة والسلام فضل قوليه هاي أو أنبياء ذكر وكليه هاي يؤمدي سفضل جاي لا هاي وملاها كلا أي كلا هاي يا حديث متى كوبات كقادنا يناو وحي النمعة أو الله سبحانه وتعالى أو تيسير يتسهيلات أو مدن أوسيي أو ملاها كلا أن لسيننا يدنا ولا قادنا يا نمعوينك إلهي سبحانه وتعالى وكوب قالي أو التي ترينا أو على وجه الشكر الله شيئا يدنا عبادين أي تهلو تريا وعبادوي النبي عليه الصلاة والسلام وترينها يا wuxuu ka wadaa ilaahay buu ugu shukrinaya nimcada Allah ku gal oo la sheego la tirtiriyo oo marka shukrin ahaan loo sheegana waa cibaadada iyadana waa cibaado weey midda saddexaad meeshu nusira birru' oo xilad iyo qanaaya oo biciid la naasi uudi shafaa'a oo jili al-ard masjidan wa dhuhura kullaha dhamaantoodana waxay kamid yihiin khasaa'ista nabiga kaleey salaam خصائصتيسنا way badan tahay ilaa 17 khisladood ay gaaraysaa bal imaam sancaani uu ka sii badiyay 21 ayuu sii gargaarsiiyay hadii laga sii titiriyana waa laga sii badin karaa inta iiday way ka sii badan kartaa waxa kale oo xadiiska ka qaadanaynaa salaada asxitaankeeda meel khaas buqca khaas kuma meel kasta salaada way ku ansaxaysaa إلا مكانه يروى تضبط ميل أو شرعي وديدي حتى إن هداينا أهين تضبط ميل أي أنا مركز اللي قلت كنكرين أو تكشده ولا الديدي أو يكملتها هاي مالها الديدي إن اللي قلت كده وحاول وضد ملاين كذلك أي مران وضد أحد إن اللي قلت كده وحكى له الديدي إذا إن اللي قلت كده محوها مالها مزبلة قشن قبكة إن اللي قلت كده ولا الديدي إذا تكشوا حاجة لو دي مالها لدي إذا كمية مالها حمامات كلو قبيسته إذا نمحوها هاي ولدي إذا مقابرته مالها سيدنا لما إذا لقيته كان ينو وحاجة لو محوها كوانكه يمالها جيل كلو قلو إذا لقيته كان حردي سي وحيالها محوها مالها وجيفته إيو صمدي سماجو قصبنا إيو هلا هي مالها سيكنا إلى تضبع يا مركا إيد محوها هاي
يا لا جارسيا مالها أن لقط كنينين الله أقولين هو هاي إن لقط كذا لا أنت كلا ولقط كنايا مالك صلاة لقط كذا وين صحيحة لو ما ندري شنا إن المساجد رجوا ينبالغين تا إن المساجد إيمانه إن ما يجي كنت كان سكت كن كلام خيار قوانا ما شاء الله داسنا فهمك حاجة سيقول آدم ومالك الله عوض أرضي ألقى إذن لو حي أصوبتها إن لقط يمومه وهكذا الحديث كقادنا هنا شريعة واصح لماذا هذا يويني ذا التنظيم عالمي إن يتهاي إذا نوان كقادنا هنا نبينا عليه السلام مركولية أيما رجل ماشي عليه أيما رجل نيجي كه صلاة أي هلايشوا جنس الرجال ولا مجيدوا بس وحاكود جنا ضمر كوي لأن النساء من شقائق الرجال ضمر كان وارجع جاحظ أحكام ترجع ضمر كان ولا جربه إمام صنعاني وكهلا يرتاح وحير ماشي أولاي مسافة الشهر ما الله صعد عليه قصي نحيا نبي وحير وقتها إيده عدو يوح لقى صدبة يا عدو جيسي واحد بال ما الله صعد أو قصه كيما مجرم بقى سائد مركز سيدا ويراد بوير والله أعلم كلمة إن أنتاس يكويك هاي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله